munaasabadan oo daahfur u ahayd xarunta cusub ee Royal Muslim Primary School uu ku yeelanayo degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada Guriceel, bahda waxbarashada, qaybaha kale ee bulshada rayidka iyo waalidiin ubadkooda ka diiwaan galiyay xaruntan cusub ee Royal Primary School iyo xarumaha kale ee iskuulku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Royal Muslim ayaa ah iskuul bixiya waxbarasho nidaami ah oo ku salaysan nidaamka waxbarashada dalka Kenya kana wada diiwaan gashan wasaaradaha waxbarashada Kenya iyo Soomaaliya, isla markaana ardayda dhigata xarumaha iskuulka Royal Muslim ee Soomaaliya ay imtixaanaadka dugsiga dhexe iyo kan sare ay la galaan ardayda wax ku barata gudaha Kenya. Ustaad Yuusuf Sheekh Axmed oo ah maamulaha sare ee iskuulka Royal Muslim oo sharaxay qaybaha waxbarasho ee xaruntan cusub ayaa guul weyn ku tilmaamay shaqadii ay ka soo bilaabeen Nairobi ee soo martay Muqdisho inay maanta joogto Guriceel, qorshahoodan ay ku sii jirto in Dhuusamareeb iyo Baydhabo laga hirgeliyo xarumo cusub. Iskuulka Royal Muslim marka sidoo u shaqeeyaa. Royal Muslim Primary School wuxuu ku baxaa horta systemka Kenya ku baxaa si dhameystiran ugu baxaa. Wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya aqoonsiga koowaad ka haysanaa maadaama xarunta koowaad ay Nairobi ku taalo. Marka Muqdisho nimidna wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayadana ka qaadana aqoonsi kale si aan wadanka uga shaqeyno. marka aan dhahayno marka Kenya system full ayaan barnaa macnaheedu waxa waaye curriculumka ama systemka wadankaas uu dejiyo caruurtiisa loo dejiyaa isticmaalna. markaan wadanka nimid waxaan ku darnay social study-ga ama cilmiga bulshada si ay ilmi u bartaan juqraafiyada dalkooda iyo wixii la xiriira. ardaygu markuu soo gaaro imtixaankii dawladda waxaan sameeynaa galaaska 8aad iyo galaaska 4aad ee form 4ka waa inay Nairobi tagaan imtixaanka xaggaas ku soo sameeyaan. markay imtixaanka sameeyaanna shahaadadii ardaygii Nairobi joogo uu qaadanayo qaadan doona haddii Ilaahay yiraahdo. haddana way dhacday way soo qaateen laba dufcadood oo noo baxday oo sanadkii hore iyo sanadkii ka horeysay aan dhahay sanadkii hore laba mar imtixaanka Kenya la sameeyay dal la socotiin noo soo sameeyay. waxyaabaha aan barno marka maadooyinka laga baro iskuulka oo laba qaybood waay. sida iskuulka horta magaciisa ka muuqato oo mar walba su'aalna laga weydiiyo li Royal Muslim maxaa uu bixiseen iyadoo aad joogtiin Muqdisho oo dadka dhan wada muslimiin yihiin ama Guriceel la joogaa dadka dhan muslimiin waay. muslimka sheegaysiin marka maxaa waay. horta waxaan rabaa inaad ogaatiin iskuulkaani asalkiisi wuxuu ka imaanayaa Kenya maadaama Kenya iskuulaad kala duwan ay ka jiraan iyo diimo kala duwan. magaca sidaas horta Kenya ugu qaadan si aan uga duunaan iskuulaadka kale oo u ogaado qofku iskuulkan inuu iskuul islaamiga yahay markii Nairobi la joogay. sidaas horta muslimka loola baxay. qof walba marka maraya wadada wuxuu ogaanaa inuu iskuulka iskuul islaamiga yahay oo maadooyin islaamiga lagu bixiyo. markii aan wadankii nimidna iskuulkii waa isla iskuulkii magaci lama bedeli karo. haddii magacii bedeshid waxay noqonaysaa iskuulkii kale inaad ka madax banaanaatid. sidaas horta magac ku wadanaaye magac ka dhashay ama ku dhashay Muqdisho iyo Guriceel ma aha. maadooyinka aan bixino sida caadiga ah waa mathka, Englishka, literacy-ga oo ah ilmihi inay bartaan inay waxna qori karaan waxna akhri karaan. asalna waxa inoo ah ardadeena ay ku baxdaa oo fasaladeena ku baxaan casharada dhan English ku baxaan. Kiswahiligan sidoo kale barnaa waxaan rajeynayaa hadda dawladda Soomaaliya waxay ku biir rabtaa laga shaqeynayaa in East Africa community lagu biiro. markii iskuulkeena qayb weyn ka qaadan doona integrationkaas maadaama Kiswahili oo yahay official language ka East African ay ku hadlaan East Africa community. waxaan kaloo barnaa SST-ga iyo sciences-ka iyo maadada la yiraahdo IRE. qaybta islaamiga waxaan bixinaa maadada la yiraahdo IRE oo Islamic Religious Education la dhaho. English ku qoran tahay laakiin waxa la baranayo waa Quraanka tafsiirkiisi iyo siirada Nabiga Caliisa Salaam iyo sidoo kale waxa lagu baranayaa xadiidkii Nabiga Caliisa Salaam ayadoo English Arabi kadibna English lagu tafsiirinayo. Quraankan sidoo kale barnaa. galad oo kamid ah waalidiinta ardadoodu ay dhigata xarunta Royal Muslim ee Muqdisho ayaa ka waramay isbedelka waxbarasho ee caruurtiisa oo hore uga raray magaalada Guriceel. kala kulmeen inaan wixii feedback aan bixiyo aniga halkaan aan deganaay ciyaalkayga iskuul ay dhiganayeen iskuulka markay dhiganayeen ma rabo hadda iskuulka magaciisa inaan sheego. ciyaalkayga mid kamid ah wuxuu dhiganaya 7 maado 6 kamid ah inuu ku dhacay dhacday. maamulka iskuulkana aysan dhihin cunugaagii maadadaas uu ku dhacay iyo meeshaas xaaladiisa maraysa. anaa arkay imtixaanka fiiriyay warqadiisa fiiriyay
waxaan tijaabiyey marka maamulka bal inay soo wacaan waqtigaan sugay la ima soo wici lacagta bis la ii soo wacaa wax kale la ima soo waco waxaan ogaaday marka inaan anigu iskuul u dhigo maahane inaan Gurceel ku hoy karin haddaan anigu iskuul u dhigay sababta waxa waaye haddii aan lagu lahayn cunugaagu waa dhacay kaalin loo galay waxaasoo ku liitaa akhlaaqdiisaan waaye macnaheedu waxa waaye qofkii aan wax aqoonin oo ilmihiisa iskuul geeyana imtixaan ma fiiri karo isaguna waa iga sii daran yahay meeshaas waxaa iga soo baxday inaanan halkaan ilmahayga aan ku hoy karin haddaan awoodo inaan iskuul geeyo kale waan tegey waan fiirfiiriyey iskuuladii magaalada ku yaalay waxaa ii soo baxday Royal inaan geeyo waxaan ku guuleystay inaan ciyaalkayga anoo halkaan joogo inaan la socdo xaaladooda waxaa dhacday gabar yar oo dhalay inay cunug ay daqartay iskuulka dhigtay fariina ii soo dhacday waxaa la yidhi gabadhaada cunugay daqartay 2 maalin 3 maalin kadib fariina ii soo dhacday waxaa la yidhi waa laga saaray systemka waa la xaliyey xildhibaan Mursal Xiifow oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug ayaa maamulka Royal Muslim ku amaanay go'aankan ay qaateen ee xaruntooda looga hirgeliyay Gurceel saaxiibaday inaan u mahad celino waqti iyo maalkooda ay u horeen deegaanka inay wax ku soo kordhiyaan waxay taas fariin u tahay saaxiibo badan oo heli kara chance ay maanta dadkooda ugu soo kordhiyaan banaankana la jooga waxaan rabnaa inay ka fakaraan inay sameeyaan qof walba oo magac leh wuxuu magac ka yeelanayaa ama oo ku weynaya bulshada ku dhashay ama ka soo jeedo ayuu ku abtirsanaya ayadoo magaca ay yeelto qayb kaliya qofka hadduu si kasta standard u yahay haddii la yiraahdo gurigaadii awood ee uu gurigiisa tilmaami aqoon waayo ama marka uu tilmaamo la aqoon waayo ama haddii la aqoodo meel dheertii inay taal lagu aqoonsado sharaftiisa iyo shaatigiisa wax gali maayo waxba uma galaan waxaan rabaa waqtiga gaaban warkiisa la gaaban waa soo gabagabaynayaa saaxiibaday sharaf iyo karaamo iyo ciise aad naga mudantihiin sida dadka reer Galmudug ama dadka reer Gurceel qaas ahaan aad amaalka ugu gasheen amaalkiina way ogyiin gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Macallin ayaa ugu dambeyn gacmo furan ku soo dhaweeyay furitaanka xarunta Gurceel ee Royal Muslim School waxaan rajaynaynaa waxbarasho ka tayo badan ama aan dhihi karno waxbarasho tayo leh ayaan inka sugaynaa hadii ilaahay inama dhahayna hadda waxaa tihiin waxbarashadiinu ma in amaanayno laakiin sanad kadib ama waqtiga maanta aan joogno waqtiyada ku xiga ayaan qiimeyntiina sameey doonaa markaan ilmaheena iyo caruurta ay yimaadaan aan ka dareeno sida ay wax u barteen amaantiinu markaas noo bilaabanee laakiin galabta waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno idinkuna soo dhaweyno gacmo furan bulshadana aan u rajayno inay ardada ama caruurta ay keenaan iskuulkan runtii iskuulku dee wuxuu qayb ka noqon doonaa iskuuladii hore degmada ugu yaalay laakiin inta aad noo sharaxdeen galabtay haddaad ka dhabaysaan ardo badan waa heli doontaan Abdullah Warsame Dhuusamareeb